shirkani ayaa waxa uu ka dhacay howlka shirarka ee madaxtooyada Puntland waxaana shir gudoominaya madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole waxaana kulankani diradda lagu saaray mashaariicda horumarineed ee ku aadan dowladda Puntland ee looga fadhiyo hay'adaha UN-ka waxaa sidoo kale kulankani looga hadlay sidii loo taageeri lahaa dadka barakacayaasha ee faraha badan ee ku sugan gobolada Puntland kuwaas oo ka soo hayaamay colaadda 20 jirsatay ee ka jirta koonfurta waddanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa sidoo kale wafdigii ka socday UN-ka uu hogaaminayay oo qaabilsanaha arrimaha bini'aadanimada Soomaaliya Jimciyadda Quruumaha ka dhacsan Mike Bowden ay ka hadleen fikirka ku aadan qaabka ay wajahayaan mashaariicda horumarineed iyo waliba hay'adaha dadka barakacayaasha ee ku sugan gobolada Puntland kulankani markuu soo ilaaday kadib ayaa madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole waxa uu ka warbixiyay kulankoodii waxa uu ku saabsanaa wafuudi ka socday UN-kana waxay u ambabaxeen gegada diyaaradaha ee Kanoka Airport halkaas oo ay tahay diyaaradii keentay magaalada Garowe bismillaahir rahmaanir rahiim sida aad arkayseen waxa maanta halkan ka dhacay xarunta Puntland magaalada Garowe shirka madaxtooyada qolka shirka madaxtooyada shir ay wada yeesheen xukuumadda Puntland iyo wafdi ka socda qaramada midoobay oo hogaaminayo xiriiriyaha hay'adaha caalamiga ah oo UN-ka oo degan dalka Soomaaliya Mark Bowden gaar ahaan uu la socday rag laga xusi karo ninka Alvaro oo UNDP madaxda ka ah wax badan baa laga hadlay qodobo badan iyaguna waxa ka qabeen waa jiraan anaguna wixii aan qablay oo dhan baan ka wada hadalnay waqti badan ma jirin oo lagu kabar gareyn karo waxa dhibaatadu ka taagan tahay oo dhan laakiin meelaha muhiimka ah oo ay ka mid tahay arinta dadka soo qaxootiga soo galeetiga oo ay ku soo dhuumanayaan waqtiga xaadirka dad badan oo dambi dalka ka gelaya oo u socda la soo diray si gaar ah loo soo diray inay kharbudaad ka sameeyaan Puntland aad baa looga hadlay way jiraan dad Soomaaliya oo badan oo yimid waliba sanadihii hore iyo markii dhibaatadu jirtay aad loo soo dhaweeyay dhulka degan oo qayb ka ah mujtamaca in badan oo contribution sameeya aad iyo aad maqsuud looga yahay laakiin daraayada waa ku dhex jirtaa dilal badan oo qorshaysan rag fuliyay oo la qabtay yaga u badan ilaa ay gaareen dadka dambiyada loo qabto oo dadka IDP-ga ka mid ah boqolkiiba 30 xabsiga ku jira arrintaas aad baa looga hadlay waxyaalaha lagu daaweyn karona waxaa ka mid ah in la tiriyo kaar loo sameeyo meelaha hadda ay degan yihiin iyaguna sida silaca ugu nool yahay laga saaro dhul la dejiyo ayaa ka mid ah aad baa la sugu afkartay dabadeedna waa laga shaqayn doonaa gaalka waxba ka hirgalay Garowe iyo Boosaaso gaar ahaan meelaha ay kala badan yihiin oo kale waa laga hirgelin doonaa dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland oo safar shaqo kaga maqnaa dalka ayaa dib ugu soo laabtay kaasoo si weyn loogu soo dhaweeyay gegada Kanoka Airport ee magaalada Garowe waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay xildhibaano wasiiro waxaana la socday wasiirka amniga iyo wasiirka maaliyadda dowladda Puntland waxaana loo soo galbiyay aqalka madaxtooyada ee magaalada caasimadda ah Garowe waxaana ay kulan la qaateen madaxweynaha dowladda Puntland madaxweyne ku-xigeenka Cabdisamed Cali Shire ayaa in muddo wuxuu kaga maqnaa dalka howlo shaqo gaar ahaan wuxuu ka soo kicitamay magaalada Djibouti ee Jamhuuriyadda Djibouti Shamarka Maxamed Warsame Hon Cable TV magaalada Garowe